dilkii xidigii hip-hopka Tupac Shakur waxa uu ka dhashay reer sumcad ahaan aan wanaagsanayn. Waxa uu la kulmay aabihii isagoo jira 20 sano, wiil Afrikaan ah oo la kulmay dulmi iyo cagajuglayn, taas oo laga dareemi jiray erayadiisa. Waxa uu ka hadli jiray tacadiga suuqyada, u doodida dadka madow iyo burcadda raabka ku gabanaysa. Wax dadku aad ayay u jeclaayeen, waxaana uu beertay cadow aad u badan. waxa uu hanjabay inuu maasuuniyadda kashifi doono, dadka hortoodana ku kashifi doono, laakiin natiijadu waxay ahayd in isaga dadka hortiisa lagu dilay. Okay, thank you. magicii yaraantiisii waxa la odhan jiray Lisanne Bridge Krog, waxaana hooyadii mar dambe u bedeshay Tupac. Waxa uu dhashay 16 Juun 1971 isagoo ku dhashay magaalada New York. Reerkoodu waxay ahaayeen reer dhibaato iyo dagaal badan. Hooyadii iyo aabihiiba waxay xubin ka ahaayeen xisbigii Black Panther Party oo ahaa xisbi u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka Black Americanka ah. ururkana waxa la aasaasay kadib dhimashadii Malcolm X. waxa uuna ahaa fidiye diinta Islaamka fidiye Malcolm X iyo u doodana xuquuqda dadka Black Americanka. markii uurka ku jiray waxa Tupac hooyadii gashay jeelka, waxa ayna ka soo baxday bil ka hor dhalashadiisii. hooyadii waxa ay ku biirtay ururkii Black Panther-ka. aabihii waxa uu ahaa wanted ama nin la doondoonayo. wuxuu ahaa 10 qof oo ugu dambiyada badan ee FBI-da Mareykanku doondoonayso. markii uu 5 jir soo gaadhayna hooyadii waa iska furtay. waxa uu la noolaa hooyadii noloshiisa oo dhanna waxa uu haystay in aabihii dhintay isagoo 5 jira. markii uu gaadhay 23 wuxuu noqday heesaa iyo jilaa Amerikaana. wuxuu noqday xidig raab. wuxuu noqday tilmaan fiican. waxa la iibsaday in ka badan 75 milyan oo albamadiisa, waxayna ka dhigtay mid ka mid ah fanaaniinta loogu iibsiga badan yahay looguna jecel yahay. waayo kelmadihiisa ayaa ka hadlayay dadka faqiirka ah, dulmiga lagu hayo dadka madmadow, burcadda iyo waxyaalo kale oo ku saabsan nolosha waaqica. taasina waxay sababtay in malaayiin qof uu qalbiyadooda soo jiito. sidaas la midana waxa uu sababay intaasi ay u samayso cadow badan oo doonaya in ay dilaan. shakhsiyadiisan xoogga leh iyo qalbigiisana aadka u weyn ee dadka difaacaya ayaa lagu nasbeeyay inay ka dambeysay dilkii loo geystay ninkan. waxa uu ahaa nin runta iyo xaqa aan kaba gaban oo mar walba sheega. wuxuu jeclaa wax akhriska, waxa uuna qori jiray gabayo. waxa uu ahaa nin mutacalima, wuxuuna aad u jeclaa gabayada Shakespeare. waxa uuna sababtay in loogu naanayso Shakespeare-kii madooba. 2001 heesaha Tupac waxa jaamacadaha Ameerika looga dhigi jiray gabay ahaan. waxay u soo guureen Baltimore. waxa uu galay iskuul fanka ah kaas oo uu ka bartay muusiga, gabayga, ciyaarta iyo jilaanimada. maalin maalmaha mid ka mid ah asxaabtiisa isagoo ku ciyaaraya xabad ayaa waxa ku dhacday baaskooladii. waxa ayna sababtay in uu Tupac galo hip-hopka ama raabka. waxa uu reerkoodii misna u soo guureen state-ka la dhaho Marinade, xaafad la yiraahdo William Park. xaafadan oo ahayd xaafad sumcadeedu aad u xun tahay, waxayna caan ku ahayd burcadda iyo daroogada. waxa bilaabatay in uu Tupac iibiyo kana ganacsado daroogada. fankiisii waxa uu bilowday 9-maadkii. koox raaba ayaa waxay siisay shaqo, taas oo inuu alaabta u diyaariyo lana jaaso. 1990 wuxuu soo saaray heestiisii ugu horeysay, waxa ayna la dhacay dadka codkiisa iyo midhaha heesta. waxa uu ka tirsanaa kooxda muusiga ee ka koobnayd 3 qof, laakiin waa heshiin waayeen. wuxuuna bilaabay inuu isagu isi soo saaro. fankiisa wuxuu ku saleeyay dulmiga iyo tacadiyada Black Americanku la kulmeen. wuxuuna noqday ninkii u hadlayay jiilkii 9-maadkii.
1991 wuxuu soo saaray albamkiisii ugu horeeyay waxa uuna ahaa Backsliders. adduunka waxa uu ku reebay buuq waxa uuna ka faa'iiday lacaga aad u badan laakiin dad badan baa ka soo horjeestay oo xitaa xukuumadda Mareykanku ka mid tahay waayo waxa uu ku dhiirigelinayay dhalinta madow in ay sharciga jabiyaan meel walbana dhiig iyo dilal ka geystaan. kelmadiisu waxay ka turjumaysaa nacaybka uu qabo reer galbeedka khaasatan Mareykanka xiriirka bulshada siyaasadda iyo u doodidda dadka madmadow. Black Americanka kaliya uma doodi jirin ee wuxuu doodi jiray iyagana dadka aadka u danyarta muslimiinta iyo dad badan kicinta dhalinyarada iyo maasuuniyadda waxyaalo ka soo horjeeda. heesihiisina aad bay u faafeen ilaa uu Tupac ka asaasay koox la yiraahdo Tag Life aad bayna caanimadiisa u sii korodhay waxayna badatay cadawgiisii iyo nacaybkii loo qabay. heesihiisu waxay noqdeen kuwa kiciya kumanaan dhalinyaro oo madow ah. albamkiisii hore markuu guuleystay 1993 wuxuu soo saaray albamkiisii labaad waxa uuna noqday albamkii labaad ee adduunka oo dhan waqtiga loogu iibsashada iyo daawashada badnaa. noloshiisa mixnadu inkastay ay guuleysatay oo heesihiisu hirgaleen laakiin shakhsi ahaan waxa haystay mashaakil ka dhaxeeya isaga iyo xukuumadda Mareykanka maasuuniyadda iyo budhcadda. wuxuuna bilaabay inuu wax jilo waxa uuna ka qayb qaatay dhowr filin laakiin dowrarka la siiyay ma ahayn kuwa cajabiya. dowrarkii la siiyay waxa ka mid ahaa in loo soo bandhigay inuu matalo nin muslim ah oo budhcad ah. waa diiday waxa loo soo bandhigay lacag dhan $100,000 laakiin dowrkani ma cajabin. sagaashamaadkii $100,000 ma ahayn wax sahlan oo si yaro easy lagu helo inkastay hadeer baadag tahay in la helo laakiin lacagta hadeer waa ka badnayd. waxa uu yiri diimuhu waxay leeyihiin qadarin lagamana yaabo in aan matalo dowr ama wax muslimiinta sharaftooda wax u dhimaya. heesihiisa wuxuu ku muujiyay in maasuuniyadu daba socoto doonaysana in kooxdooda uu ku daro laakiin mar walba waa diidi jiray. taasina waxay ku abuurtay nacayb ay maasuuniyadu u qabto fanaankan Afrikaanka ah iyadoo leh sida wiil yar oo madow ihi noo diidi kara. waxaana ku bilowday Tupac dagaalka qabow. waxa dhacday in dhowr jeer lagu soo eedeeyo kufsiyo dilal iyo gacan ka hadal. waxa kale oo la sheegay in dhowr jeer loo taxaabay xabsiga laakiin markii dambe la iska soo daayay. ka hor intii aan la soo saarin albamkiisii saddexaad wuxuu la kulmay dhibaatooyin isku dayay dilal sida dilkii 1994 ka dhacay magaalada New York isagoo la jooga mid ka mid ah asxaabtiisa iyaguna raabarada. ninkan haybtiisa aan la aqoon oo la garan waayay ayaa wuxuu ku soo riday xabad waa dhaawacmay waana ka bogsaday. Tupac waxay ku kaliftay inaanu cid dambe aaminin xitaa farihiisa wuxuuna bilaabay heesihiisa in uu ku soo qaato dad caan magacyadooda waxaana qarxay dagaalkii raabariska. dagaalkan waxa la oran jiray xeebta bari iyo xeebta galbeed. xeebta bari waxa joogay raabar AJ halka xeebta galbeed uu joogay Tupac. aad baana adduunka looga jeclaa kelmadahan dhaarta iyo dilalka ku salaysan. 1995 Tupac waxa lagu soo eedeeyay kufsi inuu kufsaday mid ka mid ah taageerayaashiisa. isagoo waraysi laga qaaday wuxuu sheegay in markii la kufsanayay gabadha uu meesha joogay uuna awoodi karay inuu ka badbaadiyo laakiin kama aan badbaadin waanan qoomamaynaya ayuu yiri. taasina waxa ay kaliftay in lagu xukumo muddo 4 sano ah in uu jeelka ku jiro. haddaba waxa dhacday in aanu sii joojin in uu heesihiisa joojiyo. jeelka gudihiisa wuxuu ku soo duubi jiray albamkii jeelka dhexdiisa soo maray wuxuu noqday albamkii ugu iib
iibka badnaa wuxuuna noqday lambar 1 wuxuuna noqday fanaankii koowaad ee kaalinta koowaad galay isaga oo jeel ku jira waxa uuna xidhnaa kaliya 8 bilood waxa laga qaaday lacag kafaalo oo ah 1 milyan iyo badh lacagtu aad bay u badan tahay kafaale ahaan laakiin qof kasta jeebkiisa ayaa lagu xisaabtamayay caanimadii sicirka isku sii shareertay waxa uuna soo saaray albamkiisii Ameerika gudihiisa waxa lagu kala iibsaday albamka dambe 10 milyan in ka badan halka caalamka kalena lagu iibsaday in ka badan 30 milyan caanimadiisii iyo cadowgiisiiba waa sii kordhayeen cadowgiisuna waxay yiraahdeen si walba ha noqotee waa inaanu dilaa 13 Sebtembar 1996 isagoo ka soo baxay casino ku yaala Las Vegas kana qayb galay ciyaar boxing ah ayaa waxa lagu dilay markay ka soo baxeen ciyaartii feertanka ee Mike Tyson waxa ay soo fuuleen gaarigii isaga iyo saaxiibkii waxaana soo ag istaagay gaarigii ku jiraan 5 qof waxa ayna ku soo rideen 13 xabo Tupac waxa ku dhacday 4 xabo laakiin saaxiibkii waa arin la yaab leh xabadi ma kuma dhicin waxa soo gaaray kaliya fallaadhii muraayada taasina waa arin dadka oo dhan ku beertay in ay ka shakiyaan saaxiibkii ma waxa dilay dawladda ma ururadii maasoniyada dishay mise saaxiibkii ka bacdi waxa geeriyooday 6 casho kadib Tupac waxaana loo soo jeediyay in ay dileen saaxiibkii waxaana saaxiibkii lagu eedeeyay in uu ka hinaasay guulihiisa laakiin wax cadayna waa lagu waayay waana la iska sii daayay waxa uu ku dardaarmay Tupac in meydkiisa la gubo ka bacdi dambaskiisana lagu duubo caleenta marijuana asxaabtiisuna cabaan 7 bilood kadib geeridiisii waxa la soo saaray hees uu ka hadlayo sida uu dhintay ama sida lagu dilaayo waana caadi waayo fanaanka Extentacion isagaba dhimashadiisii kadib waxa la soo saaray heeso waxa uuna sheegay in ay koox dileen Tupac heestan sida uu ku sheegay dadka qaar waxay sheegeen in ay dileen raabaradii ay colaadu ka dhaxaysay laakiin waxa kale oo la sheegay in ay dilkiisa ka dambeysay maasoniyada ama dawladda meydkiisii waa la waayay mana jirto aas qaran oo loo sameeyay maadaama uu ahaa qof caana waxa kale oo la sheegay in cadaynta qura ee dilkiisa ay ahayd in uu hadduu noolaan lahaa saaxiibkii Yaki Qadis waxa loo dilay isla dariiqadii loo dilay saaxiibkii boolisku ma baadhin dilka midna cidnana kuma eeday qaari xitaa maantadan waxay aaminsan yihiin in uu Tupac nool yahay halka dadka qaarna ay aaminsan yihiin inuu dhintay maadaama ay reerkooda dhakhtarkii meydkiisa hayay iyo booliska Las Vegas ay cadeeyeen dhimashadiisa laakiin dad ayaa aaminsan haddii uu dhintay maxaa meydkiisa asqaran loogu sameyn waayay ama sida uu ku dardaarmay loo gubi waayay maxaa loo arki waayay meydkiisii waan rajaynayaa inaad ka heshay fadlan channelka subscribe saar gambaleelka furo video iyadana like saar wad mahadsantiin